siigaal waxaa looga barakacayaa si ay caadi ahayn afarta barjaho laami kale laami waa laga wada xidha intaasoo khalqiyaa ku noolayd intiina saakay waxay diyaar u yihiin barakac waa socdaan qof ay u dacwoodaan male meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male inay ilmahoodii alaabtooda qaataan ma ahane muqdisho maalintii labaad waxaa ka soconaya barakac xoogan kadib markii qayba ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa milatariga taabacsan mucaaradka dhufaysi ka samaysteen xaafada ka mid a degmooyinka hodan iyo howlwadaag barakaca ku meeko oo kaliya labada degmo ee kale ah hodan iyo howlwadaag oo ciidamadu ay dhufaysi ka samaysteen hase yeeshee waxaa laga qaxaya xaafada ka tirsan degmooyinka waa beri warta nabadda iyo boondheere shacabku waxay aada uga hadleen in xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan lagu dul dagaalamo waxayna eedda dushu saareen madaxweyne farmaajo iyo xubnaha mucaaradka laga baxa layiri maatadii meeshii waa laga bixiyo meeshan siigaale anagana waaba ka baxnay waa kay caruurta waxaan geeyey weedow haddana dharkiiaan u soo doonay dharkiiaan u geey rabaa marka dhinacyada marka ishaaya maxaa ugu baaqaysaa marka maadaama xilligan ramadaan tahay oosan barakac fududayn waxaan u baaqaa inay ilaahay ka absadaan oo alaada dhan naga dhaafaan oo isfahmaan taasaan ku codsanaa hadda xaafadaada waa sidee ma ciidana jooga hadda ciidanaa jooga xaafadaa dhufaysaa lagu qotay absiyay leedahay absi baan ugu baxay marka ilmahana waa watay ilmaha waa watay xalay 9 saac haddana maanaa dharkiiaan u soo doonay dharkaan u geynaa waxay unan ilaahay u qabaan naftoodan u bixiyey waxaan codsanaya in walaalahayga ay isfahmaan ay hal mawjud ay noqdaan magaalada dawla ay ka dhalato nabad ay ku dhalato taasaan codsanaya weedoon jeedna marka caruurta aw hor jiraan yaa ku barakacinayo wali ay mulooga la gurudana kiyaay aan lanki ay mooshiine unu socno la kuliya xaaladda guud siigaale maanta ma habboona xaaladdeedu ma habboona markaan aragnay meel walba waa ka xiran tahay xalay 9 saac baa lagu soo degay ciidamo qubaysan baa yimid marka meel walba waa la xiray dadkii saasay ku barakacayaan sidaas darteedna waxa waaye waxay haystaa waa mucaaradka iyo dawladda annagana shacab haddaan ahay dan nooguma jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan taas hadan noogu jirta haddaan shacabnahay anagu waa bil rabadaan bisha rabadaan waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelyo ay ku soomaan si nabadgelyo guryahooda ay ku joogaan in hadda la kiciyo qofaa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa wuxuu ku afuri lahaa haysan hoygiisa haddana laga sii barakiciyo taasi wax nadaama maaha waxaan u sheegaynaa dawladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda ayagaana dejin kara dawladdu ayadaa dejin karta siigaal waxaa looga barakacayaa si ay caadi ahayn afarta barjaho laami kale laami waa laga wada xidha intaasoo khalqiyaa ku noolayd intiina saakay waxay diyaar u yihiin barakac waa socdaan qof ay u dacwoodaan male meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male inay ilmahoodii alaabtooda qaataan ma ahane wax kale oo ay samayn karaan male marka dhibaatadaasa haysata dawladdana waxaan ugu baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dedejiso shacabkay dan u tahay laftigeedu ayagaana maanta mas-uuliyadda ayaga haya maanta meel loo ordo ama meel la aado lama yaqaano anigu waxaan dhihi lahay labada dhinac isdagaalayso isku dhegan ishaysto inay tanaasulaan shacabka u naxaan maatada u naxaan dagaal hadda kowna ma ahan dagaal waa soo aragnay dagaalna muu cusbo raggaan oo soo hordhigan oo shacabka soo hordhigan oo inay barakacda inay barakaceen u tala galeen barakac diyaar uma nihin inaan barakacna marmin guriyana ka carna marno xaafadeena joognaa waa degannahay waana ku noolnahay mana ka baxayno labadan qofood isaystaan oo dawladda iyo mucaarad isku isaystaan waxaan dhihi lahay inay isku yimaadaan gogosha wadahadalka isku yimaadaan ay go'aan cad ka gaaraan farmaajo isna waxaan dhihi lahay inuu tanaasulo oo yidhaha labada sar waa ka tanaasule diyaarna ah yidhaha haddii qof ha yidhaha ha tanaasulo saanta baarlimo waay weliba muuqdo xal lagu baajinayo xaaladda cakaran ee muqdisho waxaana weli ka aamusan xaaladda muqdisho iyo barakaca xilligan ka soconaya magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo oo muddo-kororsi loo sameeyey 2 sano xilligan ay kasoo horjeesteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana sababtay in muqdisho ay xilligan ka dhalato colaad lagu barakacay